muuqaalka qaybtiisa saddexaad ee aan uga hadli doono tibxaalaha ama polynomialska waxaan diiradda ku saari doonaa isreynta ama abnaqa tibxaalaha. Waxaan marka sidee loo abnaqa ama loo isreeyaa tibxaalaha. Si loo abnaqo ama loo isreeyo tibxaale taas macnaheedu waxay tahay in tibxaalaha loo qoro isku dhufashada laba iyo wax ka badan oo tibxaalaha. Markii aan isku dhufashada laba iyo wax ka badan oo tibxaalaha aan u qorno tibxaalaha ayaan waxaan dhahaynaa waxaan ku sameynaa isreyn ama abnaq. Waxaan marka muxuu yahay isir muxuu yahay asaga. Dabcan isirku wax kale maaha waa tiro waaye la yiraahdaa. Tiradaas u qaybsamaysa tiro kale si xaq ah iyadoo aan ka tagaynin ama aan reebaynin wax baaqiya. Marka waxaan isirka uu yeelanayo number marka muxuu noqonayaa asagana. Isirka number uu yeelanayo wuxuu noqon doonaa asagana dhammaan tirooyinka ama numberska u qaybsami kara numberkaas si xaq ah u qaybsami kara. Dabcan dhammaan numberska u qaybsami kara number waxay u yihiin numberkaasi isir ay u yihiin ama factors. Example ku horeeyo ama tusaalaha ugu horeeyo waxaan la yiri isreeya ama abnaq ku sameeya tibxaalayaashan soo socdo. Dabcan qaybta A waxay leedahay 5x square plus 10x. qaybta B waxay leedahay minus 2x plus 6y. haddaan galno halka qaybta ugu horeyso ee A oo dhahayso 5x square plus 10x. dabcan waxaan la yiri anaga isreyn lagu sameeyo ama abnaqa lagu sameeyo tibxaalahan. tibxaalaha 5x square plus 10x wuxuu ka kooban yahay laba tibx. dabcan waxaan isweydiinaa marka waxay tahay marka aan rabno inaan isreyno tibxaale teeramka ama tibxaha uu ka kooban yahay tibxaaluhu waxaan isweydiinaynaa isirka ay wadaagaan. waliba xitaa isirka ay wadaagaan oo kaliya isma weydiinaynaa waxaan isweydiinaynaa isirka ugu weyn ama greatest common factor-ka ay wadaagaan. dabcan haddaan fiirino marka 5x square plus 10x waxaan ka fiirinaynaa marka labada dhan. dabcan each term wuxuu ka kooban yahay coefficient ama horgale. waxaan isweydiinaynaa marka horgalayaashu iyo isir ama factor noocee ah ay wadaagaan. sidoo kale waxaan isweydiinaynaa variableska uu ka kooban yahay each term ama tibix walba oo ka mid ah tibxaaluhu iyagana factor noocee ah ay wadaagaan. haddaan ka hormaro coefficient-iga termka koowaad waa 5, coefficient-iga termka labaadna waa 10. waxaan isweydiinaynaa 5 iyo 10 isirka ay wadaagaan muxuu yahay. oo waxaa loola jeedaa numberka labadooda u wada qaybsami kara waliba si xaq ugu qaybsami kara muxuu yahay. dabcan haddaan soo qaato tirooyinkii prime numberska haddaan soo qaato oo ugu horeeyo 2 5 uma qaybsami karto laakiin 10 way u qaybsami kartaa. so that 2 waxay factor u tahay number 10 laakiin factor uma aha 5. so that common factor-ka ay wadaagaan ma noqon karto. 3 haddaan soo qaato labadoodaba uma qaybsami karo. number 5 haddaan soo qaato kale 5 wuu qaybsami karaa sidaas la mid ah 10 wuu qaybsami karaa. sida la ajigeed labadan teeram coefficient-yadooda coefficient-iga u ah isirka u ah wuxuu noqon doonaa marka 5. waxaan isweydiinaynaa marka variableska ah x square iyo x iyagana maxay tahay factor-ka ama isirka ay wadaagi karaan. dabcan factor-ka ama isirka ay wadaagi karaan x square iyo x waa iska caddahay marba haddii variableska ay yihiin kuwo isku mid ah isirka commonka u ah wuxuu noqon doonaa variable-ka jibaarkiisa uu yaryahay. dabcan x square iyo x waxaa markaasi factor noqon doono polynomial-keena x. so that waxaan dibadda u saarnaa ama waxaan ka isir saaraynaa marka 5x. marka aan isir saarno marka 5x waxaan furaynaa marka bracket ayaan furaynaa si aan u muujino isku dhufasho si aan u muujino. ileen hadaa tay markaan ka soo hadlaynay isreynta waxaan dhahnay isreyntu waa in tibxaalaha loo qoro isku dhufashada laba wax ka badan. marka waa inaan isku dhufasho muujino aan bracket furno 5x bracket ayaan furaynaa. waxaan qaadaynaa marka each term ayaan waxaan u qaybinaynaa common factor-keena. marka hore 5x square waxaan u qaybinaynaa 5x. 5x square wuxuu ka yimid 5 times x times x. waxaan u qaybinaynaa marka 5x waxaa isla bixi doona ama istirtiri doona 5 iyo 5 hal x iyo hal x na istirtiri doonaan. waxaa meesha kusoo hari doona hal x oo keliya x plus ayaan leeyahay
10x ayaa haddana waxaan u qeybi doonaa 5x x iyo x way istirtiri doonaan 10 iyo 5 way isku qeybsamayaan haddii 10 5 loo qeybiyo maxaa soo hari doona 2 ayaa soo hari doona so that marka istireen ku sameeyo 5x square plus 10x waxaa soo bixi doona 5x bracket x plus 2 waayahay hadda waxaan bilaabaynaa example-ka ama tusaalaha xalka qeybtiisa b oo dhahayso minus 2x plus 6y hal isreeyo ama lagu sameeyo abnaq dabcan marka aan isreynayna minus 2x plus 6y waxaan fiirinaynaa marka ugu horeyso coefficientska ama horgalayaasha sidaas la mid waxaan fiirin doonaa variableska anaga oo aan ka xula doono ama ka isir saari doona isirka ay wadaagaan dabcan haddaan ku hormaro coefficientska waa 2 iyo 6 waxaan leeyahay isir nuucee ah ama factor nuucee ay wadaagaan way iska caddahay factorka 2 iyo 6 wada qaybsami karaa waa 2 ayaan dibadda saaraya x iyo y iyagana maxay wadaagaan isir nuucee ay wadaagaan dabcan maadaama variables kala duwan yihiin waxaan leenahay wax isiray wadaagaan ma jiro marka waxaa fiican marba haddii horgalaha hogaamiyaha ah ama horgalaha koowaad uu minus ina waxaa fiican tirada asaaris diyadan inay noqoto minus inay noqoto ayaa fiican so that waxaan dibadda saari doonaa marka ama factor ahaan aan u saari doonaa minus 2 bracket ayaan furayaa si aan u muujiyo isku dhufasho minus 2 waxaan u qeybi doonaa minus 2 waxaan u qeybi doonaa term walba oo ku jiro polynomialka minus 2 marka hore waxaan u qeybinayaa minus 2x minus 2 minus 2 way istirtiri doonaan waxaan meesha ku saari doonaa x sidaas la mid minus 2 waxaan u qeybi doonaa 6y calaamadu isbedeli doontaa waxay noqon doontaa minus 6 iyo 2 haddii la isku qeybin waxaa soo bixi doona 3 waana sideeda kusoo laaban doontaa so that waxaan dhahaynaa marka minus 2x plus 6 waa markii la isireeyo waxay noqon doontaa minus 2 bracket x minus 3y tusaalaha labaad waxaana la leeyahay hal isreeyo dib xaalaha soo socda waxayna leedahay x square plus 4x plus 3x plus 12 b idin waxayna leedahay a square minus 2ab plus b square haddaan ku hormar xalka su-aasha qaybteeda oo na dhahaysa x square plus 4x plus 3x plus 12 waxaan dareemaynaa polynomialkan la yiri hal isreeyo wuxuu ka kooban yahay 4 tibix hadduu polynomialka 4 tibix ka koobnaado waxaa la sameeyaa marka ugu horeyso oo la rabo in lagu sameeyo factorizing grouping ayaa lagu sameeyaa iyadoo laba tibix la isku xirayo dabcan x square iyo 4x hal waa isku xiri doonaa group aan ka dhigi doonaa sidoo kalena 3x plus 12 igana waxaan ka dhigi doonaa group kale waayahay marka ugu horeysa marka lamaanaha koowaad oo ka kooban x square plus 4x waxaan isweydiinaynaa muxuu yahay factorka misirka ay wadaagi karaan waxaa meesha ka muuqato x square naysan wax coefficient aysan lahayn marka kama fikirina coefficientiyada waxa ay wadaagaan ama numberkay wadaagaan waxaan fiirinaynaa oo kali variableska labada dhanba waxa ku jirto x waxa marka midna waa x square midna waa x oo caadi ah mar walbana variableka waxaan dhahnay haddii isku mid yihiin waxa factor am isro noqdo kan jibaarkiisa oo yar yahay waxaan isir saari doonaa marka x square ayaa waxaan u qeybi doonaa x waxa soo bixi doona bracket aan furo x marka isir saaro bracket fur x waxaad u qeybisaa x square waxa soo hari doona x 4x sidoo kale waxaad u qeybisaa iyadan x isla baxayo waxa soo hari doona plus 4 bracket ka xir plus aan dhahno ileen labada group waxa u dhaxeeya plus iyagana 3x plus 12 iyagana maxay tahay isirka ay wadaagi karaan dabcan x labada dhan kuma jirto so that wax x oo laga saarayo ma jiri doono laakiin numberska 3 iyo 12 aa labada dhan ku kala jiraan 3 waxay coefficient u tahay x 12 na waa number constant oo termka kale ayuu ku jiraa 3 iyo 12 marka numberka ay wadaagaan ama isirka ay wadaagaan wuxuu noqon doonaa asna 3 aan markii isir saarayna 3 bracket 3x hadii 3 loo qeybiyo 3 isla baxayna x soo hari doonto plus 12 hadii 3 loo qeybiyo waxa soo hari doono 4 hadda waxaan isweydiinaa marka x plus 4 waxay ku jirtaa dhan walba labada dhinacba so that waxaan isir saari doonaa mar labaad x plus 4 bracket ayaan furanaynaa x plus 4 oo is wadata ayaan waxaan ku sameyn doonaa factor iyadaan isir saari doonaa factor ayaan ku sameyn doonaa x plus 4 hadaan isir saarno x plus 4 markii x plus 4 loo qeybiyo x plus 4 isla baxa maxaa soo haraa hal x bisa soo harayso bracket kala furayna x ta gili plus de x plus 4 marka uu qeybino 3x plus 4 x plus 4 x plus 4 isla baxayo plus 3 gana soo hari doona asna waxaan geli doonaa bracketka markaas waxaan ku sameey doonaa waa soo xiri doonaa so that markii la isreeyo
x square plus 4x plus 3x plus 12 wuxuu noqon doonaa x plus 4 oo ku dhacsan x plus 3. haddaan bilaawno xalka tusaalaha qaybtiisa b haddaan bilaawno oon dhehayso a square minus 2ab plus b square ha lagu sameeyo israyn ama abnaqa lagu sameeyo sida meesha ka muuqato a square minus 2ab plus b square waxay ka kooban tahay 3 tibix waa trinomial waaye 3 tibix maadaama ay ka kooban tahay waxaana la yiraahdaa hal israayo hore waxaan soo baranay tibaxa laga kooban 2 tibix sida loo israayo tibaxa laga kooban 4 tibix sida loo israayo marka aan trinomial kan aan rabno inaan israayno waxaan marka hore ka dhigaynaa haday macquul tahay 4 isir ayaan ka dhigaynaa sidaan 4 isir uga dhigaynaa waxaan dhahaynaa waxaan raadinaynaa marka ugu horeyso number ama laba number oo na siinaya marka aan isku dhufano horgalaha termkeena saddexaad sidaas la mid ah marka aan isku darno ama aan kala jarnana na siinaya horgalaha termka labaad na siinaya hadalkan fiirso waxaan raadinaynaa laba number marka la isku dhuftana siinaya horgalaha termka saddexaad markii la isku daro ama la kala jarna siinaya horgalaha termka labaad termka saddexaad horgalihiisa waa hal termka labaadna horgalihiisa waa -2 waxa isweydiinaa marka laba number markii la isku dhuftana siinaya 1 oo balasa laakiin markii la isku daro ama la kala jarna siinayo number minus ah oo waliba -2 ah dabcan labadaas number waa -1 iyo -1 maxaa yeelay -1 iyo -1 markii la isku dhufto 1 balasa ka soo bixi doono marka la isku darana dabcan ama la kala jarana marka la isku daro calaamadoodu waa isku mid isku darsimi doona calaamada minuska qaad doona -2 ay isku noqon doonaan so that qaybteeda labaad ama termka labaad ee 2ab ah -2ab ah waxaan u kala qaadi doonaa -ab iyo -ab hal ab iyo hal ab ayaa u kala qaadi doonaa waxaan dhigi doonaa marka a square -ab -ab plus b square hadda wuxuu ka kooban yahay polynomialkayga 4 tibix waxaan sameyn doonaa marka grouping qaybta koowaadna grouping ku sameyn doonaa qaybta labaadna grouping ku sameyn doonaa lamaanaha koowaad marka oo a square minus ab ah waxay noqon doonaan factorka ay wadaagaan wuxuu noqon doonaa a ayaan ka saari doonaa a bracket a square marka a u qaybiyo waxa soo hari doono hal a ayaa soo hari doono minus ayaan dhigi doonaa a b markii a loo qaybiyo a ayaa isla bixi doona waxa soo hari doono b ayaa soo hari doono bracketka ayaan xiri doonaa ab plus b square iyagana muxuu yahay factorka misirka ay wadaagaan factorka isirka ay wadaagaan waa b ila labada dhan ku jirto a labada dhan markan kuma jirto laakiin waxaad ogsoonaanaysaa ab plus b square midka ama coefficientiga ugu horeeya ayaa wuxuu yahay minus mar baad coefficient ugu horeeya minus waxa fiican inaan minus factorka aan saarayna uu noqdo so that marka b waan saarayna laakiin waxaan saarayna b oo minus wadata ayaan saarayna minus b bracket ayaan dhahaynaa factorkaas minuska aan saarnay wuxuu isbedel ku keeni doonaa each term oo geli doono inside the bracket bracketka dhexdiisa term walba uu geli doono calaamad ayuu ka bedeli doonaa hadaba b hadaan a b u qaybino b isla baxa waxa soo hari doonto a laakiin a da minus ay wadataa calaamada waxa bedeli doono factorka minuska ah ee dibadda yaalo waxay noqon doontaa marka a oo caadi ah noqon doontaa sidaas la mid ah minus b marka aan u qaybino b square b lagu dhufto b ka timid hal b isla bixi doono waxa soo hari doono b laakiin b-daasi balaas ma qaado doonto waxay qaado doontaa minus taasna waxa sabab u ah factorka minuska ah ee outside bracketka yaala sida la ajigid waxa meesha hadda noogu muuqato marka a minus b ayaa waxay ku jirtaa labada dhan isir oo waxaan saari doonaa marka a minus b ama si kale hadaan u dhigno a minus b maadaama labada dhan ay ku jirto hal xaba ka soo qaado a minus b iyadoo bracketkeeda wadata hal xaba ka soo qaado a minus b labada dhan waxa ka kala yaala marna a ayaa ka taalo marna minus b ayaa ka taalo sooma iyagana anada bracket geli oo waxaad dhinac dhigtaa bracketka a minus b bracket kala fureynaa a minus b marka hore waxa dibadda ka yaalo a soo qaado minus b oo iyadana ah marka labaad xarafka dibadda ka yaalo marka aan a square minus 2ab plus b square aan isreeno waxay noqon doontaa hadaba a minus b oo ku dhacsan a minus b oo a minus b waa isku mid sooma maadaama isku mid yihiin waxaan sii dhihi doonaa a minus b square